السلام عليكم أصحابتيدا ومدة aan kala maqnayn aad aan kugu xiisay soo dhawaada waayahan waa caajisay waa safray waxaa ku dhahay hawlo oo ii gaara ku mashquulay maanta waxaa rabaa inaan idin la wadaago muuqaalka gurigana ujeedaan halkana laga galayaa fiidiyowga waxaa iga qasooso gabadheedii yariista ila socoto ninkan waa ninka guriga oo maaragtay mas'uulka ka ah oo dadka tutusinayo qaybtan waa fadhigiisa iyo qadadiisa ma ogi walaahi qadama bahasta oo maleena gurigan inta laga soo galayaa fadhigan yarka oo aruursan uu leeyahay xaafadan waa Nasra xaafada Nasra Garden ee Nairobi waaye meeshan guriga sidaan u habaysan yahay adiga waa iska desaynka Afrika halkan waa musqushi koowaad ee guriga ama musqusha oo inta badan dadka ka wada dhaxeynayso waa tan jikadiisa jikada aad u qurux badan tahay maasha Allah qaanadaheeda cusub waaye jikadeeda camal waaye qaanadaha noocaan jikadeeda iska leh waa kana qaybta hoose qaanadihiisa fiidiyowga waa bobsiinayay karaal noqdo waxa ay dhigayso gabadheedii yariista halkan waa luuqa dheerka intaas waa jikadii fadhiga ujeedaan intaana waa luuqa dheeray marka jikada waxa ku dhigan qolka jiifka xoogaa waasic waaye oo qolalka kale yar yihiin gurigan yar asaga dhan buu yar yahay buu iska kooban yahay adig guri waxa waaye hooyo iyo 2-3 caruur yar ay wadato perfect ku maasha Allah aadna clean u musqushan waa musqusha oo qolka jiifka waaye waa kana qolka jiifka qaanado waaweyn oo leeyahay maasha Allah asxaabe codkayga ka dareemi kartiin waa hargabsanahay tan kale waayahan waxa ma duubin waxa ma codeynin adigu ogi dhowr bilood ka maqanahay YouTube-ka qolkan waa qolka ay ugu tala galeen wiilasha waxa waaye nalkaas buluug oo noqonaya cadaan oo noqonaya gabadheedii yariista muuqaalka markaa duubay waa dhibaysay fiidiyowga hadda markaa codeynay waa dhiboosa qolkaas waa kii gabdhaha waxa ku soo noqonay dhanka jikada ku soo laabanay maasha Allah ani guriga cadcadka waa jeclahay gurigan waxyaabaha ku jeclahay xitaa waa cadaan yani iftiin uu sameynaa markuu guriga cadaan yahay ninkan weydiiyay balkoonki waan dhahay laakiin wuxuu yiraahdaa balkoon male meeshan uu leeyahay xargaha meesha ku dhigsanaysa waa kana adiga dhismi iyo howlaha ka socday guriga dhulka qaybta koowaad waa gurigan laakiin dhulka hoosena waa kana dad degan Soomaaliya degan already maasha Allah daashkan oo heesta meeshan yartaha ka helay nin oo artist ma dhis guriga ma ogi walaahi ku farshaxan ku sameeyaan ku dhaas kaaliska arag fadhiga daashka hore guriga sidaan u qurux badan yahay gabadheeda ninkan iska burbursanaysa hadda aniga inta igu dhiboosa guriga banaankiisa sidaan uu egyahay qaybtan balkoon kale waa galay laakiin waa la kireystay wuxuu igu dhahay ninka waa la kireystay aabahana degan oo maleena guriga banaankiisa iska fadhiyo xaafadan sidaan cool u tahay maasha Allah waxay leedahay dugsi Nasra Garden maasha Allah muuqaalo badan oo Nasra Garden way ku jiraan YouTube-ka hab ku jiraan waxaan ka wadaa channel-ka walaashay Saacadiyaha ugu badnaadaan xaafadan maasha Allah waa iska xaafad aad jawigeedu u degan yahay quruxska eegana sanfakade anaga wadada mareeno amaana iga sii carreysa arkay ay soo orday waa nahay halkaas waa meesha ka imaanay guriga hadda idin soo duubeynay yaa sug amaani ilaa iyo waxaan soo duubay marka wadada dheer ee gurigan sartan gurigan ma ahan gurigan kaleento inta hadda naga qabanayo sarta Sacuudiga la calaamada Sacuudiga lagu sharxay ganjeelkiisa aad u jeclaa maasha Allah guri qurux badan waaye oo nin artist maxaa la jiray designer qurux badan engineer ma la jiray qurux badan u dhisay xaafadan sidaan ay u kala xiran tahay Madiina Court al dhahaa kan يعني حافظة Nasra Garden waxay u kala xiran tahay kood yani kood waxa laga wadaa qayb adiga waa fahmi kartiin meeshan waa iska meel xoogaa banaanka qaybta aniga deganahay waa taas oo masaajidka anaga dhinaceenu ku yaala iyo dhinac kalena waxa waa koodka kale intuu kaga yaala hadda ninka wuxuu dhahay guri labaad ku wada meeshas waxa inta sinooyaa Soomaali si xaafadan u buuxdo waxa u badan familada hooyooyin iyo caruur fara badan arkay maasha Allah caruurta aad u badan yihiin maasha Allah qurbaha laga soo aruuriyay ganjeelada sidaan u xiran yihiin xaafad aad u degan oo aad u aruursan waa maasha Allah isliida weyn oo looma xiisaayo oo gadaale because islii waxa waaye suuq iyo buuq iyo qaylo iyo dabaq iyo waxa waan ku dhahay adi islii nin walba uu yaqaana Soomaalidu inta badan way arkeen islii laakiin xaafadan cool waaye wadadan hadda waa naga haleysan tahay maalin waxa arkay iskuul bas oo meeshan ku xayirmay laakiin waxaa maqlaayay oo ninka guriga hadda deganahay iskale igu dhahay
waa la dhisayaa wadooyinka xaafada oo contractigoodii waaba la saxeexay insha Allah dee Afrika waa meeshaan dhiiqo wax laga weynaa laakiin inay habeeyaan rajeynayaa hadda waxa u socdaa guri kale laakiin ninka qaybta uu itusiyo gurigan waxa waaye qayb uu dhisanayo qofka guriga iska leh marka waan iska dhaafay inaan soo geliyo qaybta private-ka ah oo qofka guriga iska la dhisanayo maadaama asaga uu dagayo sakireynaynin qaybihii kale oo kirada loogu talagalay aysan wali diyaar ahayn sidaas darteed muuqaalka intaan ku joojiyay oo ma sii wadin waa mahadsantihiin